baa isugu yimi badan oo sharaf leh waxaana loo isugu yimi hal arrin oo qura wixii ka soo baxay shalayto nuux ka soo baxay iyo madaxweynihiisu ay isla ogaayeen ee loo soo dhiibay wasiir ninkan ciidanka qaranka haysta ama waxaan la yiraahdo ciidanka Soomaaliland haysta ayuun ba halkan ayaanu isugu nimi waxaanu daba socdaa ficilkii wixii shalayto ka soo baxay madaxdii joogtay ama odayaashii joogay meesha la yiraahdo Ceere Gaabo inta markaan ka gudbo waa maqlayseen hadalkaas wuxuu xambaarsanaa cid waliba maqlayso way ka dhirigsan tahay cid kastaaba way ka dhirigsan tahay anana waa ka dhirigsanahay waxa weeyaan waxaan leeyahay dagaal baa ilaamiseen dagaalka ilaamiseen horaan u sheegay anigu haddaan ahay Suudaanka horaan u sheegay inuu dagaal sokeeyo Muuse u diyaar garoobayo wax ka qabiye yihiin Muuse dagaal sokeeye inuu u diyaar garoobayo oo ciil hore uu qabo oo wax ka qabiye yihiin horeba waan uga digay laakiin maanta la soo noqday oo la wada ogaaday wuxuu agoonka iyo wuxuu abdiidan agoonka iyo wasnaqana balaawa naga asaydali guriga kama ilaadaan anigu waxaan leeyahay Muuse waxaan u sheegayaa fariin baan u dirayaa maanta waxba dhulka yaay ka oolin maanta maalinta xoog weyn tahay oo ka ciidan badan tahay oo ka hub badan tahay wallahi inaad weligaa herin wixii hore ka qabiyahaana waad ogeyd horena waa isu aragnay maantana waxa weeyaan waa maalintii adigu xoog roonayd waxba yeey ka dhul oolin cidna waxba aha ma ahinin cid aad dili karta dil cid aad ku tuman karto ku tumo wada caaraan nahay ballan waxaan kugu qaadayaa ballan Muuse maanta maalinteeda Ilaahay sukaan keenay inaga oo food istaray Muuse inaad adiga oo foorara oo saab foorara inaan isu nimaadno ka soo baxay taliyaha ciidanka Nuux Taani oo fariin Muuse bixi soo faray ahayd Nuux Taani iskama hadlin cidda uu ka lad haystaa waa madaxweynaha iyo inakaay oo wasiirkiisa daaqliga annagu waxaanu nahay odayaashii garxaajiis ama salaadiintii ama gudiyadii u tegay jabhadda Caare ee ugu tegay Tabca jabhadda iyo hogaamiyaheedu wixii aanu ula tagnay oo nabadgelyo ah oo dana oo dal ilaalisa midna nagu meeydiin nabadgelyo aanu ka keenay wada hadal baanu ka keenay xasanooli baanu ka keenay wayna aqbaleen waxa laalay oo diiday waa Muuse Biixi iyo inakaahin iyo inta ku xidhan waxaanu u sheegaynaa ummadda Soomaaliland iyo islaamkaba oo xaqiiqo ah maanta cidda gardarrada iyo dagaalka waxay ka helaan bay leeyihiin wada waa ina Biixiyo inakaahin Nuuxuna waa fariin loo dhiibay oo ciddaasu u dhiibtay isaga amarta laba waxa la yiri dadka yaa u itaal daran ayaa la yiri waxa la yiri dadka yaa u itaal daran yaa u talaxun waxa u itaal daran baa la yiri nin wacad qaba oo wacad Ilaahay qaba ayaa u itaal daran waxa la yiri waxa uu gardaray nin kibri labaduba waa Muuse Biixi wacad buu qabaa ummaddu u dhaartay garsoor buu ugu dhaartay madaxweynaha ahay buu ugu dhaartay wacad buu qabaa ummadda garsoor buu sameeyay ummadoo dhan baa uu kibray waxa uu yiri dulqaadka badani doqoniinu tara hadday cidi doqoniina hayso oo dulqaadatay oo samirtay garxajis baa samray waxa aad tidhi dulqaadkii wuu naga dhammaaday annagana samirkii wuu naga dhammaaday waa qodob waxaynu kala helaabaynu leenahay waxaanu ku daraynaa shalayto nabad baanu Caare ula tagnaanu ka keenay waa diiday taad qaadatay baanu kula qaadanay wixii ay ku dhashaabay leed
مسؤول ما نركين دمير عيبا نركي هذا الكلام ودب تاجن نوحو قري أكبر وين أدركها ونيكي كل شارك جلاي عور حريل السعودي حسوق السمي أنت الدلع صوت قال شان نصر كديكتي أيو تشوجا سنك وحنو شجنا هم بدر هسه ما لنا ودن عيد كستو وحكي قرصين ما نشجنا وحنو كلنا عارف وين أدركيو ووالكيو وأدركيو وحوي هاي كاسو أيو كقالسين وحوي لين بشير لرا إن جرحت ساقبي وحوي حاجة يجا هوين كامل ورن هو بيجري كي هدر قاي لقمن نحية كي هدر قاي وجرحت سبانو نقارن دقالك واجبي لي بكره waxay ahaydeen horow hadlaa baa ka ayaa u eegay hadalka xalay ku hadleen marka hore waxba ku beeyahay dadku arkay wax meesha yaala inta waxaan u dhaafayaa loo balaabad goyn dalka wixii loo soo maray aduu qofkii ku dambeeyay aad baraka yimaadahay kuma loo sheegin kan meesha kula joogay ku adeerkay isagu laakiin uu joogay qabadigu ku ayuu ku qaybinayay dulcad أفريق سكاش كده معكوي وتشوفي برهان كمان تلا إلهي تشوفي بانكم محل نقيا وأنا بيحاول أنا أقول لك يا تقول برهان وحاد من الحسود يفتيس كل واقعنا ديار بالوية هاي وأنا أفضلنا والله هنا أنا نبدأ بكت الليل وسمال الدمع دول تشوفي وأنا ما كلا الله يقول حد سلوك ترى لا وحنيلي وروتك الليدي ninkii ku qariibin baa iska tagi doonaa ninka hadda jaran ku sheegay uu yiri shalay afkiisa ka soo baxday mana ahayn runtii wax de qof mas'uul ah oo madax sheeganayo jamhuuriyaddan ciidankeeda ay hoos yimaadaan wuxuu ku hadla ma ahayn runtiina waad arkaysay inaanu wax de rasmi oo ku talagalkiisa ahayn cid uu soo dhiibtay hadday doonto isaga ba ka dhashay cid bay u jeed cid buu la hadlay ciduu la hadlayay baa maanta halkan ka hadlaysa shalay hadashay bari hadli doonta iska taga buu way iska tagayaan waxa halkaan cidaan leeyahay de waa uu leeyahay waa iska taga waa garxajis iyo harti iyo samaroon waa dadkii wadankan lahaa waa dadkii u dhashay waa dadkii maxay toy lahaade waxaan intaa ku darayaa gabay horaa wuxuu yiri hadday taladu cishada eeg tahay aan cidina yeelaynin goortay xiriiriga gashay coliya qaad joogto ceeb way dhowr qabiil soo calaacalay ciidanka Soomaaliland ku magacaaban arin dadkoo dhan aad ula yaabay weeye garxad soo kaliya ma aad dadkoo dhan ba aad ula yaabay Soomaaliland oo dhan su'aasha ugu horeysa ee la isweydiinayo waxa weeye horta taani ma aha SNMT oo dadkii dalkan xoreeyay inna wax xuquuq ma ku lahaa maantana isaga ugu garaad sareeya ismu weydiin baan u maleynaya taas waa mid labaad shalay rag u dambiilayal ku sheegayay waxaan leeyahay hadii inuu cid dambaabtay jirto ninka yiri 25 sanadood baan baad bixinayay oo ciidan aan dalka wax alla waxay u tarayaan jirin baan lacag siinay waa dambiilaa koowaad waa hadii cadaato koow ninka yiri caaro 4 nin dilay oo gacan ku dhiigle abaan intaan dallacsiiyay abaanduulo ka dhigayna isaga baqarto waa dambi kale saddex ninka yiri ciidamadii Soomaaliland wixii kuwii tagay mooyo kuwa kale una ka daba taga oo idinkuna laydin ma baahna iska tagana waxay la tahay inaan halka hadii inuu dambi jiro waa dunuub galay waxaan leeyahay anu kuwa shalay aatiri iska tagaano anagu wax wadaagnaayo aanu raacayna kama maarano ursangeli iyo dhulbahante iyaga biirsi iyo dadka dalkayna la anagu kama maarano iyagaanu la soconna haday adiga isaaq laantu kugu filan tahay iyagaanu la soconnaa raacayna iyagaanu xuquuqdooda la baadi doonayna taayadana la baadi doonaya haba la isu qarsan maayo saak waxa weeye hadii ay noqotay in qof dushii lagu noolaado oo parasite la noqdo oo marka la yiraahdo 100 baa la qarameeyay 300 lagu qaato mushaharkood 25 sanadood waxaad u sheegi weyday raggii hore ee ka horeeyay u sheegi waayeen ay maanta u soo baxday inaad tiraahdo cashuurtii dalka iska cunayeen iyagoo wax alla wax operation iyo wax ay dalka u qabteen midna jirin aad maanta tiraahdo
waxa keenay cadaalad darraday kaaga tageen ee ciidankii ku kala yaacay ayaad ku qarinaysaa cadaalad darrada adiga kaa timi ee ciidanku ku kala yaacay baad ku qarinaysaa 740 askari oo iyo saraakiishoodii oo kaa tagtay baad maanta tidhi uma baahnine dad iyo ka seexda warinta kale ka daba taga idinma baahnine waxaan kuu sheegaynaa in dad badan tagi doono dii ilaahay nafri daayo ama ina biixaha kuu soo dhiibo warkaa ama adiga ha kaa soo go'o ama ciddii doontaa shuraaka waa kuula noqoto annagu iyagaanu la soconnaa haddii alla ka dhigo kuwa aad tidhi tagaanu la soconnaa